Sarri Ball ayaa u muuqata in ay ku guuldareysanayso in ay ka shaqeyso horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League. shaxdan lagu magac daray tababaraha reer Talyaani ee leeliya kooxda Chelsea ee Maurizio Sarri ee loo yaqaano Sarri Ball ayaa muddooyinkii dambe waxa ay ahayd mid aan guulo fara badan aan ka keenin horyaalka dalkaasi Ingiriiska kadib markii kooxaha ka dhisan dalkaasi Ingiriiska ee ka ciyaara Premier League dalkaasi Ingiriiska ay la qabsadeen sidii loo wajihi lahaa kubaddan loo yaqaano Sarri Ball. waxaana xudun u ah xidiga Jorginho ee u dhashay dalkaasi Talyaaniga oo kubadda gadaal ka soo dhisa. waxaana kooxaha Premier League ay iminka ogaadeen in xidiga Jorginho haddii kooxda Chelsea laga cunaqabateeyo in aysan awood u lahayn in kooxda Chelsea ay kubadda halisa ay kooxda ka soo horjeeda ay ku abuurto. waxayna sameeyaan kooxaha iminka wajahaya kooxda Chelsea in ay xidigo dul dhigaan xidiga Jorginho. ciyaartii ugu dambeysay ee kooxda Chelsea martii u noqotay kooxda Bournemouth ayaana guuldaro xoogan oo 4 gool iyo waxba ay ka soo gaartay, waana guuldaradii ugu weyneed muddo in ka badan 20 sano markii 4 gool dhan xitaa kooxda Chelsea ay ku guuldareysatay in gool qura ay shabaqa kooxda Bournemouth ay gaarsiiso. tababaraha Maurizio Sarri ee dalkaas Talyaaniga u dhashay ayaana kadib aad ugu carooday xidigihiisa, waxaana qolka dalbadashada kor kaga soo xiriyay albaabka muddo 30 daqiiqo ah ku dhawaad ayaana markii dambe kulan albaabada u xirnaayeen oo xitaa u diiday tababar ku-xigeenadiisa inay ka qayb galaan ayuu ciyaartoyda carag kala dul dhacay. markii dambena waxa uu tababarahan la safray tababar ku-xigeenadiisa isagoona aan ciyaartoyda aan dib ugu raacin markii ay ku noqonayeen magaalada London oo ay kooxda Chelsea ka dhisan tahay. sidoo kale kulankii ka tirsanaa horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Emirates kula ciyaareen kooxda Arsenal ayaa 2 gool iyo waxba laga adkaaday kooxda Chelsea, markaasi uu tababaraha Maurizio Sarri uu ku sheegay xidigihiisa in ay tahay kuwa aad ay u adag tahay in la dhiirigeliyo. waxaana markaan ay u muuqanaysaa in Sarri Ball oo ah shaxda kubadda baaska ku dhisan ee gadaal laga soo furfuro in kooxaha reer Ingiriis ay markaan ay fahmeen xidiga Jorginho ayaana u ah halbowlaha kooxda Chelsea ay ka dhaqaaqdo. haddii xidigaasi laga qabto kooxda Chelsea ama laga cunaqabateeyo in kubadda uu gadaal ka soo dhiso ayaa ah mid aad u adag tahay kooxda Chelsea ay afka hore ee kooxda si ay kubadda wanaagsan ay gaaraan isla markaasina ay goolal ay dhaliso. arrintan ayaana waxa cadeynaya tababaraha kooxda Bournemouth ee Eddie Howe ayaa xidigihiisa u sheegay qaybtii labaad ee ciyaarta in aysan wax walwala aysan ka qabin marka kooxda Chelsea ay kubadda ay haysato, isagoona sheegay in ay xidigihiisa ay istijiyaan marka kooxda Chelsea ay kubadda lugta ku haysato, isagoona u sheegay in aysan fursado halisa aysan ku abuuri karin haddii xidiga Jorginho ay kubadda marka uu hayo ay xidigihiisa weerarka iyo kuwa qadka dhexe ka ciyaaraba ay hantidaan isla markaana kubadda ay ka xogaan. haddaba Maurizio Sarri ayaa iminka waxa saaran cadaadis xoogan oo ku aadan in kooxda Chelsea uu ugu yaraan kaalinta afraad ee horyaalka dalkaasi Ingiriiska ee Premier League uu sanadkan ay ka gasho si ay sanadka dambe kaga qayb gasho Champions League laga ciyaaro qaaradaas Yurub. Higuain oo 32 jir ah ayaana kooxda Chelsea waxa ay amaah kaga soo qaadatay kooxda Juventus si ay u dhiirigeliso ama ay u xoojiso hardanka ay ugu jirto sidii ay uga mid noqon lahayd top 4ka Premier League dalkaasi Ingiriiska ama 4 kooxood ee ugu sareeya horyaalka dalkaasi England. iminkana waxa ay cadaadis xoogan kala kulmaysaa kooxaha Arsenal iyo Manchester United kadib guuldaradii 4 gool iyo waxba ay ka soo gaartay kooxda Bournemouth ayaa iminka waxa kaalinta afraad fadhida kooxda ay la dhan ku xifaaltamaan ee Arsenal. haddaba waa la arki doonaa halka uu ku dambeeyo cadaadiska saaran tababaraha reer Talyaani ee Maurizio Sarri iyo kooxdiisa Chelsea oo muddooyinkii dambe aad qaab ciyaareedkooda u liitay. ha mogaanin fadlan inaad subscribe garayso. mahadsan.